waxaan anigu hadda ka soo noqday safar 3 bilood oo aan ku soo qaaday goboladii Geeska Afrika waxaan tagay xamar Muqdisho bishii Oktoobar 12 baan ka tagay 12 December-na waan ka soo baxay markaa guud ahaan Muqdisho waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed weeye markaa dawladda hadda dhalatay runtii way cusub tahay wax badan lagama sheegi karo macnaha capability-ga ama shaqada ummadda ama adeegga uu qabanayso soo far si badan looma sharixi karo laakiin shaqo aad u badan oo culays badan leh ayaa runtii u taala waxaa looga baahan yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay dhaqan geliso ahda qarameedkii waa dastuurkii ummadda Soomaaliyeed kaasi aan gacanta ku hayo taasaa looga fadhiyaa walaalayaal wax allaala wixii ku qoran dastuurka oo ahda qarameedka isku xidhaya taas kaamboon ilaa loo yaqado leh xuquuqo siinaya muwaadinka Soomaaliyeed isla markaana saaraya waajibaad dawladda iyo shacabka Soomaaliyeedba dawladda Soomaaliyeed waxa looga rabaa in ay fuliso oo ay ahda qarameedka dhaqan geliso haddii taa ay ku guuldaraysato taa macnaheedu waxay noqonaysaa dawladnimo Soomaaliyeed inayna jirayn baa halkaa ka soo baxaysa walaalayaal waxa weeye outer state of Somalia waxa weeye waa gobolka ugu galbeedaya Soomaaliya weeye more than 2000 kilometers bay noo jirtaa caasimadda Soomaaliya 2 kilometer waxaan uga dhow caasimadda Djibouti baan uga dhow caasimadda Addis Ababa Ethiopia ayaan uga dhow mar walba waxaan priority-ga siinanaa in walaalahayga Soomaaliyeed aan wax la qaybsano markaa dawladda federaaliga ee Soomaaliya waxaan wargelinayaa aan ka codsanaynaa in ay dhiirigeliyaan ummadda iyo dadka ka shaqeynaya midnimada ummadda Soomaaliyeed oo laga daayo dhiirigelinta ummadda kala qaybinaya ummadda Soomaaliyeed waxaan hadalkaygii ku soo gabagabeynayaa shacabka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay midnimo waxaa looga baahan yahay hadal mida waxaa looga baahan yahay hadaf mida waxaa looga baahan yahay 22 sano wixii la soo gaaray inaynu ka soo qabqarno dawladda cusubna hala shaqeeyo wixii khaladaad mustaqbalka yimaada si wada jira ha loo saxo halana dhiirigeliyo gobolada degmooyinka hooyooyinka aabbayaasha culimadiinka siyaasiyiinta aqoon-yahanada ka shaqeynaya jiritaanka midnimada ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliya dawladda federaaliga waxa waajib ku ah in la dhiirigeliyo haddii la dhiirigelin waayo waxa iman doontaa in jiritaanka Soomaaliya la waayo. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.